moralkii mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bahda caafimaadka ku shaqeysa runtii maanta waxay anagu dhanoo tahay farxad waxaan dareemaynaa waxa aan soo koobi karin ficliyan shaqo ay qabtaan mas'uuliyiin iyo organisation aad u waaweyn inay qabteen dad da'dooda intan ay leegtahay aan qiyaasay cilmigooda hadda meesha uu marayo waxa aad looga farxo waaqiciga rabtay waa idinkaga mahadcelinayaa in badan runtii maanta mawduucan ka hadli doona hore waxa uu sheegtay ardaydeena ama mas'uuliyiinta barnaamijka saxaada war mid ka mid ah ayada runtii examples ama tusaalooyin naga siisay waxa ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leedahay mujtamaca saxadhow iyo dhalinyarada barnaamijkan soo qabanqaabisay waa u mahad celinaynaa sababtoo ah khayru naasi anfacahum dadka kii anfacaya dadka ayaa dadka ugu khayr badan lama dhihin dadka waxaa ugu khayr badan kii guri dhisa ama lama dhihin kii quraan badan akhriya laakiin dadka noloshooda in wax laga bedelo waa ujeedada ugu weyn marka aad ayaan ugu mahadnaqaynaa qolada awal ilaahay amaad iska leh waxaan rabaa inaan si guud isi gaar ahaaneed ugu mahadceliyo kasoo qogolayaasha xafladda qaybahooda kala gudsan waxaan rabaa sidoo kalena aad iyo aad ugu mahadceliyo saxato gruubka markaasi maanta barnaamijkan soo qabanqaabiyey ayaa si gooni ay si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo arday dhalinyaro ah waxbarataadii runtii aad iyo aad aan u mahadsantihiin ilaahay insha allah ajir ha idinka siiyo qodobka kale rabaa inaan tilmaamo waxay tahay doctorka waxaad moodaa inuu aad iyo aad cilmi ama ma garanaysaaye wacyigelin u dhigantaa adhii karaa haddii aan qiyaaso aniga hadda iskuul macallin iskuul waa ahay jaamacad ma ka shaqeeya runtii macallimiin jaamacadaan ka mid ahay waxaan ku qiyaasi karaa casharka maanta la qaatay timanska waxyaabaha koorsooyinka waxgalka u ah bulshada gaar ahaan ardayda aniga waxaan ku qiimeynaa 3 bilood marka casharka maanta intii yaro macallinku uu siiyay aniga waxaan ku qiimeynayaa duruus quality-geeda aan ku qiyaasi karo heer university ee macallinka nagu soo dhaqaystay ama na dareensiiyay runtii waa macallinka waxaan leenahay ilaahay ajir ka siyaasnaa marka dhammaan waa idin mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha macallimiinta soo qabanqaabiyaasha barnaamijka oo aan ogahay bulshadu inay u qabto baahi weyn aniga waxaan ka helay martiqaadka facebooka gudihiisa anaa soo doontay inaan wax qaato cashar waana kaga mahadcelinayaa doctor mustafa casharkii wanaagsanaa ayaa meesha ka qaatay ma ahayn maaragtay inaan usoo istaaga kelmad waxaan ahaa arday yimid una baahnaa inuu wax qaato oo keliya waxaan mar labaad ka codsanayaa saxadhowr inay dib loogu soo cusboonaysiiyaan barnaamijka saxatoolk barnaamij aada muhiim u ah waqtiga ka ballaarana naloo sameeyo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa doctor mustaf maxamed cali oo noo soo diyaariyey cashar bulshada dhan wada anfacaya saxadhowr waxaa waaye urur wadani ah oo ka shaqeeya ka hortagga cudurrada iyo sare u qaadista caafimaadka bulshada aragtidiisu saxadhowr waxay tahay in la helo dad caafimaad qabo iyo deegaan bad qabo marka saxadhowr waxyaabaha ugu weyn aan ka shaqeeya waxaa ka mid ah number 1 wacyigelinta caafimaadka bulshada oo aan hadda u sameynay barnaamij u gaar ah oo bixinay saxa talks barnaamijkan ay ujeedaan saxa talks waxaan uga hadli doonaa marba caafimaadka horta sidiisaba caafimaad oo keliya sida magaca ka muuqataa looga hadli doonaa hadda waxaan ku marti qaadnay seminar aad ujeedaan ciwaankiisa aad kasoo qayb gasheen ee ah ilaalinta deegaanka insha allah mawduucyo kale way soo socdaan soo walaalkiin cabdiqaadir ka dhawaajiyey iyo doodo oo wax badan ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidi doonaan